الله u naxariistay waxa xalay isbitaal ku yaal dalkaasi Jarmalka ku geeriyooday fanaanka caanka ahaa ee Cabdi Cali Bacalwaan oo kamid ahaa fanaaniintii ugu magac dheeraa Soomaaliya waxa uu ahaa abwaan ka qayb qaatay saarista riwaayada fara badan fanaankan ayaa waxa la sheegay inuu u geeriyooday cudurka COVID-19 oo dhibaato ba'an ku haya caalamka waxaana la sheegay in marxuumka ay xaaladiisa caafimaad liidatay maalmihii u dambeeyay noloshiisa waxa uu naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan waxa uu kamid ahaa fanaaniintii ciidanka xoogga dalka la oran jiray ee uu madax u ahaa maan askari aadan Xuseen ka hor dawladii kacaanka waxa uu ahaa heesaamo alifah iyo waliba la xamiistay laxanadiisana waxa kamid ahaa midkii u sareeyay Afrika waana heestii Afrika ay hurudooy oo uu alifay Ismaaciil Xirsi Farxaan markii koowaadna aaday Sanad Baxsan Xaaji Cali Sigaale balse ay magool ku cambaxday ahamal sara hurudooy hayin sidiisa la hogaaminaya ahamal sara hurudooy hayin sidiisa la hogaaminaya عوي هلا تذهبي بالله هلبي عوي هلا تذهبي دخنبو حبوسنو وليقين حليسني سيدا حوله باحرنا Cabdi Cali Bacalwaan ayaa kamid ahaa tirarkii kooxda qaranka ee Habalada Waabari adigoon kaliin dhigan shaqan ku dhaawacay ka dhigay habar weyne jiilaal dadku oo la dholondolay inaba habeenna adigoon kaliin dhigan shaqan ku dhaawacay waxa uu ka dhigayaa habar weyne jiilaal dadku oo la dholondolay inaba habeenna intabay u dhaasheen dadku dhowrayeene dhexda oo ku kadan safaneed Cabdi Cali Bacalwaan Cabdi Cali Bacalwaan waxa uu dhashay afartameeyadii waxa uuna ku dhashay deegaanka Wardheer oo ku yaala bariga Itoobiya waxa uu fanka ku soo biiray 1965 waxa uuna ku soo baxay tartankii loo qabtay kooxdii ciidamada xoogga dalka Cabdi Cali Bacalwaan ayaa kamid ahaa tirarkii kooxda qaranka ee Habalada Waabari mar uu wareysi siinayay mid kamid ah warbaahinta sanadkii hore ayaa waxa uu yiri qaran dumay qolfoofkii ka haray inaan ahay ayaan dareemaa marka soo xasuusto heerkii uu fanka soo gaaray ayuu yiri Cali Bacalwaan oo mar siinayay wareysi warbaahinta Bacalwaan waxa uu sidoo kale ahaa la xamiiste waxa uu sheegay in heestiisii ugu horeysay ee uu la xansaaro ay ahayd heestii Afrika ay hurudooy ee ay qaado Allah u naxariistee حليمة خليف مقر هردوي أذو كفر يا هردوي هدي يدعدي هردوي هدبعنا يا هردوي أهمل السارع هردوي هين سديسا هردوي لهو قامن أيام أهمل السارع هردوي هين سديسا هردوي لهو قامن أيام دل لما هلبي عوي هلا تذهبي دل لما هلبي عوي هلا تذهبي دخنبو حبوسنو وليقين حليسني سيدا حوله باحرنا لابويا دخنبو
weligeed hallaysane sida xoolihiiba xiranalaguboya badan baan hurudooy hamuun ku seexdoon hurudooy intaanya awgeed hurudooy la hadli waaye hurudooy habeenna badan baan hurudooy hamuun ku seexdoon hurudooy intaanya awgeed hurudooy la hadli waaye hurudooy ani hashaydan hurudooy haleeli waayo hurudooy la iga horjooga ali hashaydan hurudooy haleeli waayo hurudooy la iga horjooga kulli lama hilabe away hana dadali kulli lama hilabe away hana dadali